السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arintii muqdisho ka dhacday maanta airportka muqdisho aadan cadde waxa weeye maanta wixii ka dhacay waan cambaaraynayaa. waxa weeye runtii xaqiiqatan wax wanaagsan ma ahayn. waxa ka dhacay like gangsterka wadamadan jooga siday isu dilaan dadka drug addictiga noqday. laad waxaan arkay wiilal laad sidaa loola rogrogaa loola gadgadinayo, qof kasta uu garaacayo uu laadayo, iyadoo ay ramadaan tahay, iyada oo maxaan ku rahdaa bishii barakaysanayd la joogo, iyada oo dadkii sooman yihiin, in maanta la isdagaalo oo ramadaantii la iska jabiyo oo la isgaraaco oo sidii dadkii droogada isticmaalay la isu garaaco oo hal qof lagu goobto ama dhowr qof saddex dhalinyaro ahaynoo nafba ahba dhuubana masaakiin caato ah ayaa la garaacay. markaasaa haraanti lala gadgadinayo. waxaas wax wanaagsan ma aha, waa cambaaraynaynaa. dad ajnabi ah inay wadanka iska soo galaan aniga waa cambaaraynayaa, oo aan waxba la weydiinin, oo aan waxba lagu xirin condition ah, oo sidii maxaan ku iraahdaa wadankan muddabas kolley 30 sano ah intii wadanku burbursanaa waa la iska soo galayay. hawada, badda, beriga kullu ka furan yahay, cid walba soo gasho. wuxuu noqday halaqya mareen, wadankan halaqya mareen inuu degana looguma talagelin. dadka Soomaaliyeed dad ka mid ahna dhibaatada qayb bay ka yihiin, uguma ay talagelin dadka Soomaaliyeed. somehow aqligooda xun oo gaaban, somehow dad kale inay u shaqeeyaan oo calooshooda u shaqaystayaal ay yihiin, oo damiir kii uu ka dhintay, oo aanay damiir lahayn, oo dadnimo lahayn, oo aanay fikir fog lahayn, in ay xoogaa ku iibsadaan wadankooda inuu burbursanaado uu sidaan ahaado. marka waxa weeye runtii waxyaabo badan ayaa jira wadankan. marka aniga ma ogoli in la iska soo galo wadankayaga bilaa sharci, bilaa waraaq, bilaa ogolaansho, bilaa visa, ma ogoli. hadda ka hor waa ka soo hadlay ninkii youtuberka ahaa ee ruushka ahaa ee intuu muqdisho tegay waxa xun ee cambaaraynta ah ee foolxumada ah ee faaxishka ah kasoo duubay, isagoo weliba raba inuu views ku helo, isagoo weliba raba inuu lacag ka sameeyo, isagoo nacaayaya oo naceebaynaya. marka tiibaa marka maanta nalagu xabagaynaya, nalagu koolaynaya. waxaa la leeyahay meeshu waa meel dhimatay oo baktiday. dad ajnabi ah, afrikaan ayaa la isku dagaalay maanta, oo ciidankii dhammaa ee la oranayo wadankay ay difaacaan oo wadankay u shaqeeyaan la dhahay, oo sirdoon weyle lalahaa, iyo waxaa isku laayay qolyihii airport ka shaqeynayay. sida aan maqlay ciidanka waxaa soo diray xagga dowladda ka yimaadeen, Fahad Yaasiin dabcan dowladdu qayb weyn ka yahay, ayaa soo diraa la yiri waa ciidankiisii uu xukumay. waxa weeye airport ka yimaadeen markii raggii afrikaanka ahaa loo diiday oo iyagoo shaqadooda qabsanaya, dhalinyaradii ka shaqaynaysay airportka oo yiri ma gelaysaan wadankan without ogolaansho, fiiso, baasabooro keena. waxaa la sheegay inay baasaboor walaa fiiso wax ay wateen jirin, oo dad iska socday ahaayeen. I don't know say uga soo dhoofeen wadankooda. waxaan iri it's not possible, taas ma dhici karto. laakiin I don't know meesha ka yimaadeen dadkan. waxaa la sheegay inay yihiin dad gaanays ah inay ahaayeen oo afrikaan ah. marka markii sharcigii la weydiiyey baa la yiri waxaa dhacday in ay ciidamadan yimaadeen wax yar kadib, oo meeshiiba khas iyo qalaba rog ku sameeyeen, oo quraaradihii jabiyeen, muraayadihii, oo garaaceen shaqaalihii, shaqadoodii ku qabsadeen. ninka askariga shaqo gooniyuu leeyahay, shaqadan isaga ma laha. dadka airport ka shaqeeya ayaa shaqadan iskale, inuu kusoo faragashtana ma aha.
in dad bilaa sharci ah waddanka la soo gashana ma aha waxay u socdeen lama yaqaano xaaladda weliba la jooga haddeer oo xaalad kala guura lagu jiro waddanka uu qasan yahay in ajaanib ay soo galaan dana kale laga leeyahay ma wanaagsana wax kastaa dhici kara wax kastaa laga lahaan karaa waddankan iyo dadkan raggan soomaaliyeed iskuma hadlayn karo raggan soomaaliyeed waddan ma kala jecla waddanka waxay ka jecel yihiin shilinka jeebkooda galaya waddanka waxay ka jecel yihiin kursiga waddanka waxay ka jecel yihiin iyo wax walba waxay ka jecel yihiin in ay dhadhamo yar kursigaas ku helaan oo uu gurto waddankiisa xado marka waxaa weeye waddanka inay iska soo galaan ma aha ajaanib mana soo dhaweynayo waana kasoo horjeedaa ka muwaadinad soomaaliyeed ahaan ka hooyo soomaaliyeed waan kasoo horjeedaa runtii xaqiiqatan wax wanaagsanna maaha caqligana ma ogolaan karo in waddan cid kasta iska soo gasho ma jirto adduunka waddan walba basra loo soo galaa waddankan aniga hadda ku noolahay iskama soo geli kartid waxaa ku soo geli kartaa fiiso dalxiis ah dalxiisnimo ama waxaa ku soo geli kartaa qaxootinimo ama waxaa ku soo geli kartaa ardaynimo ama waxaa ku soo geli kartaa business ama haddii lagu soo visit gareeyo qof adoo ku socda oo waxaagii oo dhan wata oo isagoo mas-uulkaa yahay wax alla waxaad geysatid ayaad ku soo geli kartaa si kale kuma soo geli kartid waddamadan waddan la iska galaayo weligay ma arkin iyo allahay waddamo badan ayaan soo maray oon soo deganaa ma arag maxay tahay waddankan la iska soo galaayo maafiyadu iska dhex qulqulayso oo iska dhex sumsumayso oo abeesooyinkii masaska iyo halaqyadu iska dhex marayaan maxay tahay damiir xumadaas shacabku xataa waa inay taa ka kacaan waa inay ajaanibta la dagaalaan waddankan ma degaayo ilaa ajaanibta laga saaro ajaanibta way dhibta ugu weyn waa ajaanibta qas weyn ka wada waxyaabo badan ayay ka sameeyaan kooxo kastana ajaanib bay wataan gooni ah oo u khaas ah marka ragga soomaaliyeed oo waddankiina u naxa sida u dhaama sidaanu si ma aha sidaan waxaa laga bedelo madaxweyne farmaajo dadkan ma qasbi karo dadkan ma jajuubi karo dadkan wuxuu raba kama samayn karo dowladdii ka weyneed oo 21 sano jirtay ayaa qasbi lahayd dadkan soomaaliyeed waxay ka kaceen shalay waxay ahayd maxamed siyaad barre oo 21 sano waddanka haystay allaha u naxariistee oo diiday kursiga in lala qaybsado oo diiday xukunka in lala qaybsado oo diiday in xukunka laga bedelo oo kursiga u diiday fursad dadkii kale oo dhan u diiday kii kursigaas ku soo hambaasa ama soo haweystana hawada ku cunaayay xabsi dhigaayay 100 jirow iyo maxaan ku radaa xeebta liida iyo rag lagu laayay iyo ama wuu dili jiray ama wuu xabsigu dhigi jiray sida la sheegay xabsiyada ayaa la gelin jiray dad aan aqaanaba aabayaashad xabsiyaday ku jireen oo la geliyey maxaan ku idhaahdaa dad kale waa la dilay calashaan kursiga see usoo haweysan kartaan daraaddeed marka waxay ka kaceen oo dhan jamhadihii taasay ahaayeen sababtii kicisay taasaa ka dambaysay oo ahayd middaasay ahayd oo ka kacday marka waddadii halaqyada badnayd in lagu soo noqdo 30 sano kadib shame on you aan leeyahay farmaajo inuu ku soo celiyo waddanka shame on you aan leeyahay waddadii xumayd oo uu ogaa oo dhibta badnayd oo rafaadka laga soo maray iyo silica siyaad barre nacayb loo qabo daraaddeed ayaa dagaalka wuxuu isu bedelay awal jamhadu ahaa iyo dad kuraasta raadsaday oo saraakiil sarsare ahaa iyo maxaan ku idhahdaa dad isku dayay in ay maxaan ku idhahdaa wax bedelaan ayay ahaayeen dadkii la xirxiraaya la dilaayay maxaa marka dhacay
jamhadaa samaysmay jamhadihii kadib maxaa dhacay siyaad barre nacayb loo qabo darteed ayaa beelihii siyaad barre ku abtirsanayay oo la qabiilka ahaa lagu kacay oo la yidhi dila oo la yidhi waa isku mida dila oo laaya oo waddanka ka saara oo ilaa iyo libooya iyo dhoobley iyo dhagaxley iyo maxaan ku idhaahdaa kakuuma ool dhulkaasoo dhan la geeyey laga saaray xadkaba laga saaray dad masaakiina oo shacab ah waxa ay geysteen jirin ayaa siyaad barre daraadiis loo saaray marka tii baan hadda u jeedaa aniga social media markaan u fiirsado dhagaysto dadku aqligooda say u fekerayaan waddan kasta kuwa ka soo hadlaya kuwa qurbaha jooga kuwa gudihii ka soo hadlaya muqdisho ka soo hadlaya kuwa meelo badan oo gobollada dhexe ka soo hadlaya waxay leeyihiin shaki weyn bay ka qabaan xataa waxaan arkay kuwa dhahaya axmed madoobe iyo ina dani farmaajay wax la wadaan keligood baa keliyoobay meel bay ku shireen waa isla hadleen waxa loo shiraayana waa hawiye kuwa dhahaya ayaan u jeeday marka dadkii maskaxdooda inaanay korin qaybtood ayaan u jeedaa ama dadkii danleyda ahaa ee before sameeyey dhibaatadii inay qabiilada isku dhacaan oo waddanka burburiyaan dadkii dad ay ka tageen dad ay tababareen dad ay dhaleen ama dad maskaxdii tii hore ku qafilan oo weli maskaxdooda tii ku jirto dad ka soo haray ayaa weli nool oo raba tii wada wax kaloo kalena way kusoo dhuuman karaan dad ulajeedooyin kale damacsanna way kusoo dhuuman karaan ajaanib baa saas nooga faa'iidaysan karta marka dagaaladaas waxay ahayn dagaalo doqonnimo wax laga dheefay oo maanta muuqda ma jiraan aan ahayn burbur dhibaato rafaad silic kufsi maxaan ku dhaha ilmaha yagagiyo loo dhoofsado keliyaha lagala baxo meel kastoon ku dhimanno tahriib maxaan ku idhahdaa ciidan kasta oo waddankeena la keeno cudurro maxaan ku idhahdaa gaajo haraad dhuxushi iyo dhirtii oo la jaro dhuxushi la gubo oo dhirtii la gubo oo la dhoofiyo maxaan ku idhahdaa iisha kala qaybsanaan badan maxaan ku idhahdaa ururo badan oo soo baxay oo ulajeedooyin kale leh maxaan ku idhahdaa in ajaanib badan ay noo soo fadhiisatay xalane oo meesha ay ku urursan yihiin oo noo qayilayaan oo maalin walba isku kaaya dirayaan annaguna aan doqomanahay except aan dhahayno wax badan oo dhan oo rafaad oo halaaga oo dhibaato ah ayay keentay marka tii farmaajo ha ka digtoonaada inuu soo cesho farmaajo tii yuu nagu soo celin intii ma u adkaysan karno ma ogolaan karno ma aqbali karno dalkan farmaajo si sharaf ah oo wanaag ah doorashaha u qabto hadduu helo alxamdulilah welcome baa la leeyahy waa la soo dhawaynayaa hadduu waayo oday soomaaliyeed ha noqdo dadka si wanaagsan ha loo dhaqmo ha la shaqeeyo madaxweynihii kale ee la doorto dowladda ha la shaqeeyo experienka uu leeyahay 4 sano uu joogay ha ku biiriyo waddankan farmaajo ha badbaadiyo waddankan farmaajo yuuna taariikh xun uga tegin taariikh xun iyo dhagxumo yuusan uga tegin waddankiisa ha u dhimriyo dadkiisa ha u dhimriyo waddankiisa ha ilaaliyo burbur ha ka ilaasho dadkan soomaaliyeed weli ma bisla weli caqligoodu ma bisla weli dad isku kalsoon ma aha waa dad kale aamin baxay waa dad kale fogaaday waa dad aan is aaminayn hawiye daarood buu iska eegaya daaroodna hawiyu iska eegaya runtii aan hadal adag idinkula hadlo wax la qarinayo ma jirto runta waa taas isaaq daarood buu iska eegaya faqash waa uu leeyahay hadda ka hor buu diyaarada ugu garaac uu leeyahay weli wuxuu ka qabaa shaki baanaroy ayuu ka qabaa hawiye
waxay baanarooya ka qabaan daarood hawiye baanarooya ka qabaan kulli raxan weyn hawiye baanarooya ka qabtaa kulli sidaas wey kulligood waa saas dirtu hawiye baanarooya ka qabaan kulligood waryaan kala reebin all soomaali weli ma bisla marka sida la isugu wadi karo dadkan ha la isugu wado sida la isugu soo dhaweyn karo ha la isugu soo dhaweeyo dadkan shir dib heshiisiineed ha loo qabto maxaan ku idhaahdaa dowladoodii yarayda afarta sano ay hadda isdooranayeen siday ku socotay ha loogu wado waddankan ha loo naxo baylahda ah waddankan waddan dad leh ma aha dadkiisu dad fiican ma aha hadday dad fiican yihiin soomaalidu madax fiican baa ilaahay siin lahaa madax mar kasta burburisa madax dadka kala qaybinaysa madax dadka isku diraysa madax maxaan ku idhaahdaa ii sheeg dictatorial ah madax rabta inay kursiga dhaxal awoowo u leeyihiin oo kale inay u haystaan ugu fadhiyaan madax rabta inay tooda kaliya ku socdaan oo aan cidna la tashanayn laguma sallideen waxaa loogu salliday dadkan soomaaliyeed ayagaa xun dad fiican ma aha sababtoo ah qabiil xaqdarro xumaan qurun oo dhan ayay ku dhex jiraan diin yaraan soomaalidu dad diinta ku fiican weeyaa la dhahaa laakiin diinta waa baranaa laakiin siday tahay kuma dhaqano siday tahay sida saxda ah wayga saxda ah uguma dhaqano diinta waxaa nagala qiimo badan qabyaaladda ayaa nagaga qiimo badan oo aanu ka weynaynaa diinta ilaahay run miyaa la ramise been wadaadka qabyaalad baa ku jirta kuwa ugu waaweyn hadday doonaan waa ka buuxdaa maxaan ku idhahdaa wax nadiifa meeshaan ma leh madaxda way ka wada buuxdaa shacabka waaba kuwa ugu daran maxaan ku idhahdaa ayagoo dabka isku shidaayaba dabka dambaska ayagaa iska dhigayaba ayagaa u kala hiilinaya guruubyada ama kuwa wadaada lagu sheeg ha ahaadaan ay u hiilinayaan oo garab siinayaan ama kuwa siyaasiyiin ha ahaadaan ama madax ha ahaadaan ayagaaba dabka isku shidaayaba oo u kala hiilinaya oo dambaska iska dhigaayaba cadaabaha ayagaa iska waraabinaya dambaaburada ayagaa isa saaraya dogobyo ayaa isku shidayaan aan ilaahay ku qasbin ayagoo noo dhihi kara qolyaha diinta haddii aynan maxaan ku rahdaa wadin diin dadka nabad ka shaqaynaysa dalka ka shaqaynaysa nabadiisa horumarkiisa iyo maxaan ku rahdaa aanay laynaynin dadka noobay dhihi karaan siyaasiyiinta noobay dhihi karaan haddaanay ka shaqaynayn nabadda isu soo dhowaanshaha waddanka dantiisa dadka dantooda haddaanay dalka ilaalinayn bad iyo berri iyo cir iyo dhul noobay dhihi karaan madaxda noobay dhihi karaan laakiin shacabki muxuu yahay shacab iska guul wadaynaya kii yimaadaba sacabkay u tumayaan babababac soo dhawow I don't know dadkan wax ka qaldan waay kulligood guulwado u yihiin ku kasta guulwado u yihiin wax ma diidayaalba wey waxba maba diidayaanba I don't understand waaba la yaabana dadkan soomaaliyeed shacabka waxba maba diidaan shacabka waxaan leeyahay waxaan ciddan dan idiin wadin diida waxaan dan idiin ahayn diida walaalkaa kula dhashay ina adeerkaa hadduu yahay kii hooyadaa dhashay hadduu yahay iyo aabbahaa dhaleen diid hadduusan dantaada wadin diida shacabow diida waxa weeye danta guud wax ka wanaagsan ma leh danta guud aan u dagaalano waxaa dan noogu jirtaa kulligayo danta guud qofka wada qofka shaqsiga soomaaliga ah ee danta guud wada ayaa noo wanaagsan qabiil ha ku taageerin cid ilmo adeernimo ha ku taageerin walaalnimo ha ku taageerin danta guud qofka wada danta guud baana deeqda danta guud baa nagu filan wax kale oo soomaali deeq ah
ma jiraan inay dantooda guud eegaan maahane dantooda guud waa inay fiirsadaan. ha la iska daayo nin jeclaysiga, ha la iska daayo qabyaalada, ha la iska daayo kooxaysiga, ha la iska daayo guruubaysiga, ha la iska daayo ururada lagu kala jiro, ha la iska daayo. mid walba urur buu dabada la gelayaa, koox buu dabada la gelayaa, mid walba dana khaaskiisa keliyuu ka shaqaynayaa, mid walba maxaan ku irahdaa jeebadiisu ka fikerayaa. cid kale oo u naxaayo walaa wadan walaa dad ma jirto. talow caruurtiisa iyo caruurta awoowaha u yahay muxuu ugu talagalay halkeebuu ugu talagalay inay ku noolaadaan? ma qurbe, ma dal shisheeye, ma dal aanay lahayn? dal aadan lahayn waa dareen ku joog. dal aadan lahayn ma lihid, barkintana ma dhigan kartid, mana ku ladi kartid, forever ma joogi kartid, never. ha ka yaabin wax ciidaada kaaga fiican ma jirto. Soomaaliye ciidiina wax idinka fiican male, ciidiina wax idinkaga wanaagsan male, ciidaada wax ka wanaagsan malaha. hantiyay macaan waa midaan hooy lagaa oran. ya haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo, waana lama huraane. hagar li'i wax ugu qabo, hagar la-aan ugu shaqeeya dhulkiina iyo dadkiina. isagaa idin hudhan, isagaa leedihiin, meel kale ma lihidin. geeskaas africa yaa ee sabanka ee africa koonarkeeda ku yaala ee carabta jaarka la ah baa ilaahay idin dhigay. halkaas baad leedihiin Soomaaliye, meel kale ma lihidin. dhulka dhab dhaha. reer xamarka waxay dhahaan reer muqdisho dhulka dhab dheh. yaa micnaheedu waxaa way isdeji. marka waxaa way walaalayaalow, intaasaan rabay inaan sheego. ummadan Soomaaliyeed ilaahay beerkooda burcad ha isu mariyo, ha iska joojiyaan kooxahan wadanka ay seelgaraynayaan, iibinayaan. ha joojiyaan kursiga ay ku iibsanayaan. wax ha joojiyaan. wadanka kursi laguma iibsan karo. mid walba kursiga suu usii fadhiyo waxaa weye jilaac buu muujinayaa, uu ajaanib u muujinayaa, iyo wadaamo raba inay dhulka nala jaraan, raba inay maxaan ku irahdaa magac iyagaba meesha ka saaraan, adduunka iyo qaaradda dhan inay wadanka naga qabsadaan rabaan. ayuu mid walba isu jilcinayaa, isu dibcinayaa. wuxuu ka raadinayaa suu kursiga ugu sii fadhiyo ama suu kursigaa u koro ugu fariisto, ayuu u iibinayaa dalkiisi iyo dadkiisi iyo sharaftiisi iyo dignitigiisi iyo magaciisi iyo hantidiisi uu u iibinaya. dhulkaaga ciidaadu waa hantidaada. hanti ma guurto ah weeye dhulku. hanti ma guurto ah weeye. gurigan kor laga dhisay xataa wuu kaa dumi karaa, laakiin dhulku kaama dumaayo, dhulku kaama tagaayo, halkaasuu kuu oolaanayo. waxaa la leeyahay waa dhulkii Soomaaliyeed baa la leeyahay. marka dhulkaas ha la wada ilaashado. waa hanti ma guuraan ah. dadka Soomaalida waxay hanti ma guuraan u yaqaanaan aqal xuno meel laga dhisay oo ka taagan. ma aha hantida ma guuraanka ah aqalkaas. aqalkaa wuu dumi karaa, wuu gaboobi karaa, waa la dumin karaa, waa laga jabin karaa meesha, laakiin dhulka ma guuro. hantida ma guuraanka oo muhiimka ah waa dhulka. dhulka aan ilaashano Soomaaliyeed, dhulka aan ilaashano. kursi waxaa ka qaalisan, kursi kasta waxaa ka qaalisan, iyo boqortooyo kasta waxaa ka qaalisan dhulka. dhulkaa ka qaalisan. dhul lama helo, taaka dhul ah lama helo adduunka. taaka dhul ah way ku xisaabtamaan, waxa ku jira ku xisaabtamaan taakadaas dhulka ah. macdanta iyo khayraadka ku jira taakadaas dhulka ah bay ku xisaabtamaan adduunka. suu qiimo ula leeyahay dhulka. Soomaalina dhul qiimo lama laha. macdan baan qiimo la lahayn. say u kor fadhiyaan bay ka dhimanayaan, oo laga xoogaya, oo laga qaadanaya, oo balaayo kala cunaysa, because ayagaa isu jeeda. indhahooda cadowga ma arkaan. indhahooda cadowga ma arko. maxaan ku rahdaa isha qalbadooda cadowga ma aragto. waxa weeye maskaxdooda cadowga kama fikirto. ayagunba iska fikiro oo saa isu eegaya. yaa
afartan madoobaatay ee Soomaalida ah unbaa saa isugu jeeta ilaa dad yar baan nahay runtii dhulkuna waa naga badan yahay waa naga ballaaran yahay waxaa weeye Soomaaliyey sidaan isu dhaano dhulkeena aan ka fekerno kursi waxba ma aha waxaa la yiri musiibo iyo magacba maalin bay ku baxaan waxaa weeye madaxdooy taariikh xun ha ka tegina hunguri ha dhaafsanina wax kursigiina iyo dadkiina dagaalaha u kicinina marka dadkan Soomaaliyeed weli ma bisla dad waxaa weeye weli qabiilkii iyo balada ku jirto marka intay ka toosayaan intay maskaxdooda ka dhismayso inta aanu ka bedelayno oo inaan wax bedelnaanu rabnaa haddaanu Soomaali nahay Soomaalida qaarkeed kulligeed ma aha qaar baa raba inay dumiyaan wax laakiin aniga I hope inaan ku jiro dadka wax inay dhisaan raba because waxaan jeclahay inaan dadkayga wax ka bedelo inaan wax ka bedelnona waa jeclahay oo ka wada bedelno marka ilaahay xaqaa tuso ummadda Soomaaliyeed isbedel baan u baahannahay isbedel wanaag baan u baahannahay sharaf baan u baahannahay magac baan u baahannahay qiimaan u baahannahay qadarin baan u baahannahay adduunka qaaradda Afrika inaan qiimo iyo qadarin ku noolaanaan u baahannahay adduunka inaan maxaan ku iraahdaa sharaf iyo magac ku leenahaan rabnaa haddaanu Soomaali nahay ma rabno sidaan ma rabno ceebtaan ma rabno sharaf dhacaan ma rabno taariikh xumadaan ma rabno dictatorinimo ma rabno maxaan ku iraahdaa madax xun ma rabno dad aan fekerin ma rabno ilaahay wax khayr qabaanu ka barinay ilaahay ummadaan caqligeeda foorara saraha u kacsho ilaahay ha toosiyo waxa ay haystaan iyo kursiga waxa ay haystaan inuu qiimo badan yahay oo badan yahay ha ogaadaan nimcada dhulka ku jirta ayaa ka badan kursi xun waxa aad ku heleysaan marka kaliya cuna in hadaa rabtaan inaad noqotaan oo kursiga intaa ku fariisataan kaligiin iyo kooxdiin iyo qabiilkiina inaad cuntaan wadanka oo dhan hadaad rabtaan idiima soconayso waxaa weeye wax socon kara ma aha waxaas marka waxaa weeye ummadda Soomaaliyeedna waa iska kiin qabanaysaa cidda waxaas wado cidda waxaas ku fekeraysa oo maskaxdeeda ku jirto waa la iska qabanayaa gacan biraa la isaga qabanayaa wada jir baan rabnaa tugadaan rabnaa waxaan rabnaa ummaddan intay ka hagaagayso in la isku yabyabo wax la isku toosiyo si maxaan ku iraahdaa jiilka dambe bal ay noqdaan dad wax fahmaayo oo wanaagsan oo qabyaaladu ka maranta oo qabyaaladu ka baaba'do oo ka tirtirmato qalbigooda iyo dhaqankooda oo qabyaalada ka baxoba markaan salaamayaa isbedel baan u baahnaa isbedel madaxda Soomaaliyeed dadkiina u naxariista dalkiina ka ilaaliya dhagxumo iyo magac xumo iyo burbur iyo dhibaato kale 30 sano oo kale taag uma hayno khaatibil marran taaganahay ma rabno 30 sano oo dambe oo dagaal ah oo rafaad ah oo maxaan ku raahdaa dhibaato ah oo kufsi ah oo ilma la iibsado ah ilma kaliyaha lagala baxa ah dad la dhoofsho ah dhalinyaro tahriibta ah rafaad iyo silic tabar uma hayno rafaad iyo silic dambe tabar uma hayno maafiya nagu soo xirooto maxaan ku iraahdaa isha noo soo fariisata Muqdisho xerada maxay ahayd magaceedii Madiina noo soo fariisata ma rabno waxaan rabnaa wadan sharaf leh xalana kuwa noo fadhiyo xalane ma rabno maafiyada xalana noo fadhido kale inay noo soo fariisato ma rabno ciidamo shisheeye ma rabno kufsi gabdhahayaga la kufsado ma rabno ilmahayaga in la iibsho ma rabno maxaan ku iraahdaa traveling maxaan ku iraahdaa childrenka waxa lagu sameynaayo dhalinyarada tahriibaysa ma rabno gaajo
ma rabno roob la-aan iyo dhirta la xasuuqo oo laga iibiyo carab iyo annagoo dhasartina laga dhigo dhulkayaga saxaro laga dhigo oxygentu ku yaraato pollutionku ku bato hawaday nadiifisaa dhirta marka ma rabno dhibaato inoogu filan faraqaan ku haysanaa ilaahay ha naga saaro dhibta ilaahay ha noo dhib dhaamo sidan si ma aha ilaahay si khayr qabta ha noogu bedelo waan salaamayaa waxaan leeyahay asalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuhu isbedel baan u baahnaa isbedel soomaaliya isbedel